shidan musikii waxaa la gaaray waqtigii alakis kaalay soo eg goboladii buntland soo eg soolyasanaya soo eg subaxan عمامة دماغي والله وقت قريب سوق على ست أنا عايز أروح أقول تاكل أنت سؤال موجود والله ما مغلي ساعة سر أنا قل عمامة هذا وحيسوي سوق هذا لو قاعد فريق سار كل صاحبنا وكنا وكا وسعودال لقي سار بسم الله الرحمن الرحيم برايم حق العظيم ما حق عمود ساري تدوار فوق برتيدا يوتيوب كسبسكرايب سارة جنبلالك فرس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحابتك كحر برتيدا يوتيوب كمال والبقوا الدنيا كجوتان maantay waxa ila fadhiya mid kamida kuwa ugu laandheeraysan ama u tunka weyn baraha bulshada shiina colay tunka ka rusanta odayga tunkiisa waka shaatiga waxa weeye waa ku qariya kalarka wali saasa dhaabugtay sida ulugu dhuubanahay baan u tun dhuubanahay yunikan in ka waalin odayga oo dadkiisa ku dhex jira baanahay xirada barakaada baxda ma qadar in adeero xirada iga saaran xilliga dad badan oo koofiyada ayagu isugu tolay yay duulaan ugu soo qaadinayso waa tahay aniga shiina colay maantay waxaan go'aansanay in aan reaction wada jira oo buuqiisa wata ka bixino mucjisada fanka socdaal waa salaamaya socdaal waxaan leeyahay gantaaladii ridada dhexe ay u soo garaacday waa ay soo gaareen haddii waxay sugaysaa uma leeyahay inaan hees ku soo qaado ama maaragtay ama aan odaygu u ka gargasho waxaa la yidhi fallaari girgirsha kaagama harto waxaan idhi heestaas socdaal hadalaa la soo fariisatay iyo midaa heesaa usoo qaaday oo kaaga harimayso marka nabarkaa waa qaatay ilaahay mid xaqiro ha iiga dhigo waxaa la yidhi beledu marna adeeg kula joogtaa markay kaa maqan tahayna cid kale ku maqan tahay odaygi mana dumaanta puntland aaday alxamdulilah rabbi alcaalamiin hadda usbuuca xataa ilaahay sugayey marka alxamdulilah rabbi alcaalamiin baa leenahay marka socdaal heestiisaas waa hees culus nin labadeeda kamida inuu gaarkeeda action uga bixiyo waa u bareeri weynay waxaan dhahnay heestu milgaha iyo maamuuska ay leedahay aan siino oo heesta aan isugu tagno وسيدا يا هو يسوع العلنو سعودان القبان كرامها إيه يسوع العلنو ما ملكي بدلان ودور كعبة ماذا يا هيستا مو هيستا أو العلنو مركز وأنا أوران كرا بنتنا هيس ما كنا علي هيستا هيس كعلوس أهلوس وقاضي أضيق ما أعرف ما بشيء ميز ما أنا كذا صح تيجي على سوا قاضي مركز بالواشدنا غير بنتنا ما هيس ما كنا علي سوبر سعودان وده كذا هذا كذا يا موي ديجا سعودال هذا كذا عليه وردتك نك دتك دب أرديو والكحرة حتى الشيء هو حاسس هذيك الافتكار هذا ترى سعودال وجوابيا توكور ليسان حتى هذا طالب قصة طورية تتوبن تريس توبن ولا السعودال يا بس بقى العموم عدو السعودال كوريجيا كغفي فيه حتى نكاس وهناك كوفية الشتو بيهنات بالكسي هذا بسرعة أها وكا بوساسو برتل بقرتو يدي قرن بوساسو برتل بقرتو يدي قرن بوساسو برتل بقرتو يدي قرن ترويو halkaas boosaaso qardho buurtile boosaas boqortooyada qardho buurtile magaalada qardho waa boqorkiiba halkaas fadhiya magaalo aad culus weeye boosaasana deeqaan dhahnaa waa meel oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay ku soo hiratay buurtilena waa garanaysaa halka nugaal iyo gobolka nugaal ay ka tirsan tahay magaalo istiraatiiji ah waaye marka bacbu odaygu ku bilaabay saddex magaalo oo baca u boqortooyada ku lurayna waa dhex gashay waa ku soconaynaa kalkacayo baran bariban tabiya gabdhooda garowe iyo gaalkacyo baran berri baan tegaya marna soo socdaa
odaygi waa soo socdaa heesna iska soo hormariyay reer Puntland waxaa leenahay waxaa la yidhi nin abaal galaa badan laakiin nin gudaa yar midaan kuu sheego fanaan walbuu Puntland u qaadanay asbuuciyo gudaheeda ugu tagaa showga adduunkana waa showga adduunka dhaca waa la soo dhaweeyaa waxaan filayaa oo idinka rajaynayaa maanta hees baa idinku dhacday hadday heeso sharaf leedahay waa duca xataa ku jirta yaa waxaa laydinka rabaa ninkaa socdaala markuu garow yimaado anuu hadda u malaymayo inay qorshaa ugu jirto ninkaa aad buu u mashquul badan yahay dalal badanaa waqtigiisa ciriiri ah meelo badanaa laga soo dalbaday xataa amooro lahaa jarmalkaan rabaa inaan keeno turkiga ha waa ninkaa waa lala yahay haddiiba uu ninkaasi idiin soo jeedin warkowda ogosta idiin soo socota odayga u yeerta marti qaata si la yaqaan oo milge iyo sharaf leh u soo dhaweeyey waxay ku dhaafeen khayrkooda waxayba joogaan dhulkooda waxayba diidaan cadowgooda waxayba dhowgaan dhaqankooda gobtaa garowe gobtii bilicdaa boosaasu gobtii qiimaha qardi wanjara maanta guushayda horta heestaa inoo qabo horta heestani ilaahay baa been caayay heestani heesii socdaal hore u qaaday waa ka culus tahay maya waa heestaasi heesihiisii hore aad bay uga duwan tahay waxaa halkaa ka muuqata socdaal inuu horumar deg aan samaynayo hadduuba 2 usbuuc gudaheed sidaa isu bedelay yaa waxaan oran karaa socdaal yar uu ahaa maanta waa socdaal weyne hadduuba sidaa isu bedelay 2 bilood ka bacdi xaggee gaaraya rag badan oo hadda ninkaa isla idiin soo dhawaan mayo anuu waa u baqay waxaa ogtay koodaanka xaalaa la qaadi doono adiga markaad aragtid YouTube dardar ku socdo soo maqaayadaada un bawda maxaa uga baqo weynay okay socdaal martida waa ka naxaabay dhageyso 2 heeso hore soo qaaday hay maqaayadaada ka dhex qalanaya iyo ugu deefanka igu day taas dhibaatada labadaasi igu deefanka taa aniga igu soo galay waxa iga maya isda male taa ilaahay baa ilaahay noo xaqdiray ducaas ilaahay aqbalay taas igu deefanka inkastoo ay ku jirto oo maartay caydana de marka oo de hooyo de qof sharaf la tahay de oo maartay isaga aysan u fiicnayn sax hooyo qof kale hadal wiil xukman noqdo way ku habsaamin taas ay ka saarnay waxa iga darnayd maqaayadana ka dhex qadayna markuu yiri Soomaali maqaayado badan kuma ogeyn ma ogtahay ben ku sheegmay 3 beri dumas baa kaga jira baabka waxaan islahaa talow ma isagoo oodihiisa wata buu ku soo gelaya marka labada heeso iyo tan ben ku sheegay ana ka dareysa mugta muusigayga laga daran meel walba Puntland waa ani dhulkayga dadka ku nool waa dadkayga waxay dhegeystaan muusigayga waxaa la gaaray waqtigayga alakis kaalay soo eg goboladii Puntland soo eg soolyasanaya soo eg subaxan saakiya soo eg saaxiib kaalay ila eg barya nugalas ninka nin cimaamad dimeeday wallahi waa tuuray soo qaadaa socdaal ma ujeedaa wallaahi may maqlaysaa seer aniga cimaamadaada waxaysan waayey kasoo qaadano kaa fadhiisaan waa kol saaxiibkaa waa kane waa socdaal adeegiisa bismillaahi raxmaan bilaahi maxaa ka dhacday madaxayga cumada si saaray dundubaari cimaamadaadii ayuu gaarnaa kugu soo dhiibay wallaahi baan cimaamadaada qof bini-aadana oo u haysan karaa u jirin marka maasha allah Puntlandna waxaa ku dhufatay ammaan maaha waa ammaan iyo bar hadday taa abaalkeeda gudi waayaan oo wiilka gaariyo guri isugu dari waayaan oo garow u keenaan oo showga ugu cusbaan fanaanda ma u soo heesiyaa ma jiradii ma loo soo heesiyaa bade ma hadduu taa socdaan Puntland wax kaga waayo oo ninka heesta kale wax ka helaya waa kee ma jiro soco barya nugalas soo eg
mar labaad kaalay bal eg halakis kaalay ila eg barayo nugaalna bal eg goboladii puntland soo eg boosaaso hortilne boqortooyadii qardho boosaaso qof reer qardhaca oo welida ayuu kaarlo janaalkis aan subscribe saaran ma jiraan hadda hasaaro qof reer qardhaca qardho waa magaalada puntland hoyga dhaqanka baa muuqday boqorkiiba ilaa boqor cismaan boqoradii fadhiya muuqday magaalo culus waay haddii halkaa lagaaga soo duceeyo cid ku qabanaysa male haddii halkaasi kuu kacaan ya xariga qardho laga xiro wallahi meel laga furo male ma habaar ma jira lagu soo abaariyay hortilne boqortooyadii qardho boosaaso hortilne boqortooyadii qardho garowiyo kalkacayo heesta adi maxaa ka tiri anu ka hadlay maxaa ka tiri adiga maxaa ka tiri heestaan niyo heestan ninkan odaga ah sida aan horay u sheegnaba laba hees oo soo qaaday anigu war la qariya maaqaan haye anaa dhahaya haddaad aad idhehed heesihii hore oo soo qaaday dhiiqay ahaayeen haye dhiiqadii iyo heesii ahaayeen wuxuu soo qaaday kaa tiiday kaa tiiday in lagu soo heeso baa muraade ila tahay nin ku talagalay in la soo galaa tahay anigu waa kaa diiday socdaal maqlaysa anigu ninkaa ku soo gardaraystay aliyadda ku socda anigu kuma jiro socod okay hase ahaatee hadda waxa ii muuqda ama aan dhegaysanayno waa hees caadiya markii loo eego fanaaniinta raabgareeda ama caadiga markii laga taga hadda fanaaniintii ciyaantan dambe waxaan aragno sax dee kama liito waa lamid hadda heestan waa lamid aniga heesatan kuwii hore odagu no comment wax comment aan ku darsamayo sidaadii heestanaa jirteen waxa waaye heestan waa iga gadan tahay waxay ila tahay hadda wuxuu is yiri reer puntland dee waa moogtahay waa garanaysaa waa ku ammaanaysaa waa qoomiyad dhan meel fadhida sax marka wuxuu is yiri wax kaa gadan kara oo iyaguna aan la golotay karto oo ay kaa qaadan karaan dadkiina oran karaan oo puntland hees la yaqaan baa ku dhacday soo qaad buu is yiri heesta hal wax baa ka dhiman maxaa ka dhiman horta fiugeedu inta maraya wuxuu marayaa 370 bay maraysaa 400 waa naada furne 400 baa okay 400 iyo one day another level another record waa mugtay kuwa waxa laga yaabaa janaalaha dhoodii meelaha Koobiya oo la soo geliyay teegaan dhahan shaakan war janaalkiisa saxda ah 400 bay maraysaa anu dad oo kaar 400 ba sheegay ba 400 waa ku noqonaa waa afarta marka wuxuu shiri wax ka gadin karaya maartay laka keen socdaal ninkaas amaantiisa intaasina kuma filna waa ku yareynayna waa inaan sii wadno waxaan ku leenahay keep going brother janaal la waa samaysatay fanaanin badan hal abuur ku dheeriyay kuwa badan oo waxa jira ilaa iyo maanta aan janaal samaysan maanta la joogo 2021 bishii July tana janaal lahayn hadda fanaaniin waxaa jira intaas san heesay sida sheegtay aan janaal lahayn socdaal heesta koowaad janaal ma soo gashan heesta koowaad oo soo qaaday waxaa loo soo diriyay janaal kale oo dhalinyarada xawli joogto fanaaniinta soo gelay heestii labaad inaan ku soo xasuusiyo mar rabe janaalkiisa soo gashtay heestii kaaga shaqeeyay marka waxaan leenahay socdaal keep going hore u soco hadaaba sida isu bedeshay durba oo codkaagi maanta kanaan hayay yahay sanad ka bacdi waxa gaaraysaa meelaan maaragtay laga hadli karin marka waxaan ku leenahay war ninkaa waa kartidii oo qof ah dadnimadii oo qof ah madaxii oo qof ah ya dadaalkii oo qof ah nin laga hadli karo ma aha oo saaxiibkay meel fog nooga yimi waa u mahad celinayna runtii waa nin aad u qiimo badan janaalka subscribe ka loo saaro tan inta barnaamijka lagu ku doono kulanka dambe anaa Belgium ka imanaya ya anaa Belgium guuleysta odayga soo sheego lagu laabo maayo oo maasintaasina